وهاجاك dhegeystayaal makana waxa ku soo dhawaataan qaybtii afraad barnaamijyadii xiriirka aanu kaga hadlaynay taariikhda Soomaalida militarigii haddaba talada la wareegay bishii Oktoobar sanadkii 1969 mucaaradadii ugu weyneed ee xagga shacbiga ka timaada waxay ka dhalatay xeerkii qoyska oo golihii sare ee kacaanku ay soo saareen bilowgii sanadkii 1975 talaabadaasi waxa ay keentay in culamadii diintu ay ka hadlaan sida xeerkaasi qoysku uga soo horjeedo diinta islaamka oo ummadda Soomaalida boqolkiiba boqol oran karo way aaminsan yihiin xeerka qoyska oo ka hadlayay sinaanta ragga iyo haweenka marka ay timaado xagga dhaxalka didmadii ay wadaadadu dideen waxa ay tilmaameen in xeerkaasi uu ka soo horjeedo aayadaha quraanka waxa kacaankii dalka haystay ay u dileen taas didmadii ay dideen 10 wadaad 23 kalena waxa lagu xukumay xabsi dheer inta aynan haddaba khudbadii dhibaatadaasi ay ka dhalatay ee ujeediyey Maxamed Siyaad Barre aynaan gudagelin afgambigii uu hogaaminayay markii talada ay qabsadeen bishii Oktoobar sanadkii 1969 mowqifkii xagga diinta ma muujiyeen mise ma muujin ama halkay ka taagnaayeen maxay ahayd waxaanu qadar imaka dhageystayaal idinka maqashin doonaa Maxamed Siyaad Barre oo ka hadlayay arrimaha xagga diinta khudbadii ugu horeysay ee uu jeediyo markii talada ay la wareegeen waxa khudbadaasi uu jeediyay 23 bishii Oktoobar sanadkii 1969 waxaana guud ahaan uu kaga hadlayay ciidamada talada qabsaday waxa ay doonayaan inay sameeyaan iyadoo diintuna ay ka mid ahayd waxaanu doonaynaa inaanu marka ka dhigno dalkii dal sharci ku dhisan inaanu dadkii ka dhigno dad sharciga u hoggaansan oo is iyo dhowrmo nin iyo nin ahaan ay ka dhaxayso hay'ad iyo hay'ad ahaan ay ka dhaxayso caaniyadana ay ictiqaadsan tahay inuu laga maarmaan yahay waxaanu doonaynaa inaanu ku tillaabsanno laalooshka inaan baabi'inno waxaanu doonaynaa inaan ku tillaabsanno qarabakiilka inaan baabi'inno waxaanu doonaynaa inaan ku tillaabsanno qabiilkii xumaa inaanu baabi'inno oo laynaga soo galayay oo ajnabigu markay rabaan inay nahaleeyaan ay ku tiirsan jireen oo sabab ka dhigan jireen adigu qabiilkeed tahay adigu xaggee ku dhalatay adigu muxuu kaafay tahay hebel waxbaa isu tihiin hebel waxbuu kaa sheegaa maxaa sababteed u tahay inuu idinka kormaru rabaa inuu idinka hoosmaru rabaa wixii ay tixi jireen nimankii gumaysayaalka ahaa oo haatana masawirkooda beentu nala joogo maskaxdooda iyo caqligoodana meel kale uu ku dhisaasanya inaanu baabi'inno oo aanu marka tirtirno meeshii dadka ama aan isku kalsoonayn ama aan iimaan ka lahayn amaba adeegayaalka ajnabiga ah amaba ajnabiga laftiisu ay ka soo geli jireen inaanu awdno oo Soomaali weyna ay barbar ku raacdo kuwa waxaas miskiinka ah taabacsanna aanu geed cidlaa ku xirro dadkuna ay u muuqdaan kuna xooleyno waxaanu doonaynaa dhaqaalaha dalka inuu hore u kaco in shacbiga Soomaaliyeed caafimaadkiisa iyo qoomiyadiisa inay hore u kacdo waxaanu doonaynaa inaanu dhalinno qoomiyadda la yidhaahdo Soomaali la yidhaahdo midnimo la yidhaahdo wax wada qabsi la yidhaahdo wada noolaan inay dhalato waxaanu doonaynaa inaanu ku beerno dadkanaga inay ceeb tahay xanta iyo afniishaaraynta iyo beenta iyo sabidaadda iyo jaajuuska iyo waxa qashinka ah oo aakhira iyo adduunba ku foolsan waxaanu doonaynaa diinta islaamka oo aynu haysanno oo la haleeyey oo loo bandhigay nin kastaaba inuu ku xayaaro inaanu xoogga aanu haysanno ku gees istaagno oo diintu ay quwi noqoto bacdana ay tahay gundhigii shacbiga Soomaaliyeed ay tahay hadalkaasi waxa uu ahaa khudbadii ugu horeysay ee uu jeediyey Maxamed Siyaad Barre haddaba markii golihii sare kacaanku uu soo saaray xeerkii qoyska ee sababtiisa wadaadada lagu laayay bishii January ee sanadkii 1975 waxa Maxamed Siyaad Barre uu jeediyey khudbad uu dadka ugu sheegayay golihii sare kacaanku go'aanka ay qaateen khudbadaasina waxay ahayd waxaan idin sheegayaa in maanta uu gaaray golaha sare kacaanka inuu idin sheego in gabadha iyo wiilka Soomaalida isku xaq yihiin in dhaxalka ay isaga xaq yihiin waxaa jiri jirtay haddii nin dhinto oo gabar kaliya ka tago haawey aan waxba ugu jirin xoolaheeda inay boobaan haddii taasu dhacdo gabadha xoolihii aabeed inay korigeed leedahay ee wax kale ay ka qaadayn waxaa jirtay in maxaa la oran